السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتي ذا يوتيوب كأدبن إدين سلام يا دنيا دافي هذا ملك استلك تشوف تامبا وحن إذن ليه يسود وهذا وأنا حمدي شكريا إذن كغاي معنا سحمد الناتشرالز مركز تو حن جعل هاي وحنا نقول جعل هاي يا essential oils كأنا إذن لا شير قريو يا marka ku soo dhawaada channel-kayga in leeyahay maanta maxaan ka hadlaynaa weeyaan waxaan ka soo hadalnay horta malmal baa in badan ka soo hadalnay dhowr ilaa 5 cashar baan ka sameeyay malmalka malmalku sida ogtihiin waxaan idin sheegay inuu waxyaalo badan u fiican yahay waxaynu wada ognahay oo aan shaki ku jirin inuu dhulkeena ka baxo waxaynu ognahay inaynu inagu iska leenahay waxaynu ognahay inuu khayraadka Alle ina ku galaday uu yahay laakiin inta maxaa ka soo dhalatay weeyaan waxaa ka soo dhalatay dad badan hadda ay maaragtay dadka qaar waxay ka soo bixinayaan maaragtay inay waxa lagu oranayo waxa kale malmal miya oo malmalku sidoo waxaas uu maaragtay xanuunka u daaweyn karaa malmalku sidoo saas ugu fiicnaan karaa marka aniga goolkayga waxa weeyaan horta in dhulkayga waxa dhulkeena ka baxa aynu jeclaano hal qof hadaan helo oo jeclaada ama ka faa'iideysta khayraadka dhulkiisa ayaa horta wuxuu iga fiican yahay waxyaalo aad u badan oo aan helay ya hal qof oo hal geed oo dhulkii ku yaala dhaqaaleeya deefsadana that's my goal ya aniga go'aankan leeyahay waa intaasa marka malmalkan waxaan uga hadlayaa anigoo waqtigaygu yar yahay anigoo shaqeeya alxamdulillah aniga farmasi taag baan ahay farmasi baan ka shaqeeyaa shaqadaydu waa maaragtay waa maanta dhan waxa laga yaabaa intaad soo taagnaatid oo medication soo xirxirtid oo attention badan baa laga rabaa yani attention ku soo lumiyo maskaxdaada oo dhan ay noqoto inaad maaragtay ay cabsi aad ku shaqaysid lianna haddaad wax yar magac yar isdaba marisay ama daawo laga rabay 800 milligram 1000 milligram aad label ah ku dhajisid waa ka kacna waa lagu soo cayrin maaragtay waa complaint baa laga qoraya marka waxaan uga galayaa saad kugu sharaxayaa anigoo maaragtay ku soo jira maanta dhan shaqada caynkaas ka soo shaqeynaya ayaa marmar waxaan doortaa inaan idin la soo waraago waxaan idin la soo waraagayaa waxa weeyaan wax kale ma aha dhulkeeni ina maaragtay inaan jeclaano dhirta inoo ka baxa maaha qofka inay shaqo la'aan hayso dadka qaar baa waxay ku oranayaan shaqo la'aan baa ka wadatay malmal muxuu sheegayaa shaqo la'aan baa ka badatay shaqo la'aan ma ka badato dadka horta dadka wax la wadaagay laakiin waxaad arkaysaa inay baahi jirto ya ayaa dareemi karaysaa inagana xigmad darro iyo aqoon darro ay ina ka hayso dhirteena waxaan nahay wadanka ugu dhirta badan wadanka Mareykanka oo aan anigu joogay ya hal geed oo native halka kuma jiro waxaan maleeyaa way yara gaaban tahay meeshay ay saaran tahay kaamiradeeda ma doonayo dhaqdhaqaajiyo kan waa rosemary gan hadda Allahumma salli ala Muhammad originkeedu waxa weeyaan Latin America ya grapefruitka kadalika originkeedu waxa weeyaan waa Japan lavenderka sidoo kale gid dhirta essential oiladan hadda iga agdhow gidi waa lagu sheegayaa botanical meeshay ka timi calaashan geed ahaanteeda iyo ubax ahaanteeda iyo wax dhir ahaanteeda meeshay ka timi wadanka intay qabiilka basically inagu waxaan ku fahmaynaa qabiilkeedu yuu yahay yay ka tahay dhir qoladeebay ka tahay yaa inagu Soomaali soo ma wadanihin Soomaalidu marka waa calaadul waa inaan qabiilka aan ogaanaa moqt marka waa saas oo kale marka qabiilkeeda lagu sheegayaa dhirteeda lagu sheegayaa waxay tahay siday ka sii tahay meeshay ka baxday maadada la soo mariyay in la soo distill gareeyay in la soo dilute gareeyay in infuse lagu sameeyay ya lagu kala sheegayaa marka hadalkii oo gaaban waxa weeyaan malmalka yaan la yasin waxaan dareemay dad badan inay yasaan ya oo ma aragtay maxaa lagu falayaa waxaaba qofka kala muhiimsanba dhirtan xun iyo waxyaalahan iyo geedka la yiraahdo kala idin soo qabanaya green tea million green tea ka wanaagsan baan leenahay inagu million geed oo green tea ka wanaagsan oo caloosha socodsiyo waxaanu leenahay diisi waxaanu leenahay tiire waxaanu leenahay malmal xabag ya millions that I cannot name hadeerto oo aanan magacayaashooda soo koobi karin inaga haysanaa oo ilaahay ina kaga fadalay waxaan leenahay maxaa la dhaawariyo called
luumaanta tan geedkan hadda waxay khaas u tahay wadamada Japan wadanka Japan ba iskale yaleen baa la yiraahdaa dhibicdiisa ayaa intaas ma aragtay oo dollar aad ka iibsanaysaa halka dhibic oo essential oils kaasa marka inaguna milyan baa imagine geedka la yiraahdo geed xamarka marka videoga biidnillah inaan soo gaabiyo oo si kuwiiga aan usoo maaragtay aan usoo galo ayaan go'aankaygu ahaa balse hadalka markii la sii furfuro dee marba meel buu kuu qaadayaa marka go'aankeena waa weeyaan Soomaaliya ay dhirteena aan jeclaano aan idin wadee dhulka Mareykanka wuxuu leeyahay hal geed oo la dhaho oak tree iyo caws yar oo sun badanaa xataa hadaa ku korsocotid allergy baa kugu kacaya waad ku xanuunsanaysaa xoq baad qaadaysaa how uu contaminated yahay ya poison uu yahay cawskaasi ya uu leeyahay اللهم صل على محمد geedka waaweyn weeyaan marmar wixii Ameerika joogin hadda u yara sharaxaya dadka kale way garan karaan dadkii North America la joogo kale waa dhir dhaadheer oo aad u waaweyn weeyaan wada cagaar bay markasta tahay ilaa xilliga barafku jira ma ogiye marka geedkaas kaliya weeyaan ya qansax male oo qurac male oo meegaag male oo luumaan male oo what do you call maxay hayto luumaantu waa xabagtee geedka luumaantu ka baxdo meydin male oo you know waxaas intaas oo geed aniga waxaa laga yaabaa dhirta wadankeena hadda inaan ugu khibradiya ahay oo dee wax badan dad badan iga sii badiyaan laakiin waxaan anigu isleeyahay naf ahaantayda wax badan baad ka taqaanaa dhirteeni iyo magacadii ya oo bardame leh oo daray male ya marka laakiin geedkaasaa saasaa dhulka dhan cagaar buu ka dhigay ya inaguna intaasoo geed oo aan magacaabay baan leenahay mana dhaqaalayno haddaa la dhaho qof wargeedkan caafimaad baa ku jira dhaqaalayso geed muxuu sheegaya lagu leeyahay muxuu sheegaya geed Soomaali adiga soo yara khafiiftay dad baa soo yara khafiiftay dee ma dhir oo wali reer baadiye hadda xataa North America tagtay reer baadinada kaama tagayso wallah for sure sacad baa laygu yiri maogtay wadankii markaan joogay marka anyways waxaan leeyahay markastaba dhirteena jeclaada dhulkeenana aan jeclaano ruux waxaad ku leedahay dhulkaaga dhir badan oo daawo baan leenahay aniga maalinkii luumaanta lay barayay markasta waan sheegaa maalinkii luumaanta lay barayay iyo qasalka markii lay barayay qasal waan aqaanay laakiin 10kaygii buu soo galay waa back 2016 bay ahayd marka lay barayay islaan cadaana ya ayaa isoo tuurtay 10kii islaanta Florida ay joogtaa aniguna marka gobol Illinois la yiraahdo Mareykanka ka tirsan baan joogay marka iyaduna Miami Florida joogtay marka ay ku leedahay shukriya 10kan aan ku soo diray maanta geedkan wuxuu ka yimaadaa East Africa waa kana bala wixii ii sharaxday marka geedka iyadu waxay iigu soo qortay hadda luumaanta oo kale wood chip marka wood chipku waa luumaanta qolofteeda kore waan luumaanta xabagta ahayn wixii waan sii waxay sawirro iigu soo dirtay meesha laga guraya dadka laga guraya inay yihiin dad xijaaban baan arkay waxay noqotay ba meel lagu kala shaqshaqayo aagan North Eastern Soomaaliya iyo Kenya meesha iska garaan dad jooga ay soo dartaa dhow sharaxaad ayada iga soo bixisay markii aan ku xiro geedka anaaba iskale wadankaygu ka yimi how come sidoo kale qashalka ii sharaxday meeshu ka baxay ii sharaxday marka fiiri waa wadankaygii baa laygu barayaa Ameerika meesha ugu dambeysay dhirtaydii iyo sida loo manaafacadsado inaguna waan yasaynaa waxaan idin leeyahay aan kala barano aan kala faa'iideysano dhirteena wax ka wanaagsan ma jirto maanta waa iska sheeko inaan Rosemary-gan horeyna page-ka channel-kaygana way ku jirtaa balaanka insha Allah next time-na waa soo gelin doonaa mar labaad li'aana manaafacaadkeeda lama dhamayn karo waxay u yara eeg tahay sida geed xamarka oo kale markaad isku eegtid geed xamarka shaah baa laga dhigtaa iyadana shaah waa laga dhigtaa oo rosemary tea baa jira marka idin kama hor dhacaya iyada next soo ahaan doonta bi'inillah essential oil-ki baan gadaal ugu noqon doonaa waxaan idin leeyahay marka malmalkii mar dambe yaan laga soo sheegin wax dhaliila hadaysan hana dhaliilin malmalka ala iskale dhulkeena weeyaan dhulkeenu ka baxaa lacag baana la kala siistaa expensive gaaladu heer waxay gaaraan hadda kaniisadaha ay u shitaan ya
nooc waa la caabudi jiray bay yiraahdaan intaasoo maaragtay bibleka hebel intay soo sheegaan I believe inaan kow markii hore aan soo duubay aan kaga hadlay kelmad sida kaniisaduhu ay u isticmaalaan marka heerkaas uu marayaa yaa marka la dhaqaale aynu dhaqaalayno aynu dhaqano sida xoolaha loo dhaqdo oo kale malmalka geed kasta wadankeena ka baxa ma jiro adduunka carabaha waynu aragnay waa saxare yaa marka waxaan idin leeyahay channelka ku xidhnaada let's support each other anigana markaas waxay isiinaysaa confident badan maaragtay inaad wax badan soo geliyo idinkana waxaan idinka dareemayaa dee ila soo wadaaga maxay haytay wixii aad ka qabtaan sidee dhirta u baran lahaydeen ma sii wadaa maxaad u aragtaan dhirta Soomaaliya ku taala magacdooda intii aanan aqoonin dhirta aad wax ka aragteen kuwa la isku daaweeyay kuwa idin xanuujiyay leena geedka ku xanuujiyay haddaad geed isticmaasho oo uu ku xanuujiyo waxaa laga yaabaa maadada daawo inuu yahay oo daawadu ku badan tahay marka wuxuu u baahan yahay in daawada la decrease gareeyo oo geedka wax lagu qaso yaa marka waa geed muhiim ah ogow xataa haddaad geed intaad cuntay ama meel iska marisay uu ku xanuujiyay ma aha geed inuu maaragtay ilaahay jas wuxuu u baahan yahay in la dhaho precaution ha laga qaato calaashan digtooni ha laga qaato geedka saas iyo saas wuxuu yeelaa waxaas lagu qaldaa dosage iyo wuxuu yeelanayaa milligram sida daawadu loo siiyo maaragtay in daawadu milligram san tahay in saas oo kale loo milligram iyo camal marka waxaan leeyahay lads dhirteena dhaqaalaysanne barta aad igala socotaan waxa weeyaan Xamda Naturals magacaygu waa Xamda Shukri ku soo dhawaada Xamda Naturals islana sheer gareeya islana wadaaga cajilka wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh